لا ما هذا سبحانه وتعالى لا بكري ما هذا waxaan u mahadnaqayaa raggan soo dhaweeyay oo mahadnaqayaa Abdurrahmaan iyo Jamaal safarkayga aan ka soo noqday wuxuu ku saabsanaa marka hore waxaan ka qayb galay shir dalka Mexico halkaas oo asxaabtaan isku mabdaayay ka soo shir ku lahaayeen loo maalmood socday waxaa ka soo qayb galay 79 dal asxaab ka socota ka bacdi waxaan in Mareykanka maraykankan imina waxaan la tagay Washington DC oo ay targetkayga halkan waxaan kula kulmay wasaaradda arrimaha dibadda State Department-ka madax ka tirsan iyo USAID-ka la kulmay waxaana arrinta kala hadlaynay qadiyadda reer Somaliland iyo magaranaysaa arrimaha taleex iyo arrimaha Soomaaliya iyo Somaliland iyo Soomaaliya wada hadaladeeda iyo waxaad doorashooyinka afarta qodobaan aan kala hadalnay marka waxa aad ugu sharxay magaranaysaa si baahida loo qabo in doorasho la qabto ana waxaan iibin jirnay waxa ay doorashooyinka iyo nabadgelyada iyo dimuqraadiyadda iyo magaranaysaa saxaafadda xorta ah marka qodobkaas doorashooyinka oo dib nooga dhacay marka la eego baarlamaanka iyo magaranaysaa guurtida waxa loo baahay in la qabto si loo qabtana waxa loo baahay voter registration-kii in la qabto marka arrimaha inaga caawiyaan arrimaha taleex waan uga warramay iyo wararkeedu waan ka helnay waxaan soo ogaanay markaa in adduunka ka go'onnahay aynu aasannahay layna aasay lanagu dhigay meel ay ka buuxaan argixisadu shabaabtu ka buuxdo lanagu dhigay magaranaysaa dhulkeena la qaybiyey oo in badan laga dhigay dhulka la isku haysto wax badan oo qalad ah oo propaganda ah oo laga daba tagin lagu dhuray taadu wax ka soo saarnay wixii lagu goray wax ka soo saarnay laakiin waxa u baahan tahay dadaal weyn baa loo baahan yahay oo dibadda loo qaado arrimihii dibadda waxaan taaganahay meel eebara halkan ismarina iyo halkalena marina isma leh qaylo weyn baa dhacday waxaan noqonay dad isku jeeda xilkii ummadda loo hayay waa la iloobay yaad moodaa ballantii la qaaday inaan qaran noqono ixtiraafna waa laga seexday waxaa loo baahan yahay hadda in la is-abaabulo waxa weeye waxa aad iyo aad loo dagaalamaya waxa weeye maamulka magaranaysaa Garowe khusuusan ninka hadda la doortay Cabdiweli wuxuu ka dhigtay shaqo dacayada Somaliland isagoo isticmaalaya kontaas markuu ra'iisul wasaaraha Soomaaliya ahaa aqoonta adduunka lahaa ayuu isticmaalayaa marka dagaal buu ninkaas nugula jiraa waxa loo baahay markaa in la baraarugo waxaan soo maray Addis Ababa waxaan kula kulmay dadaal weyn waday magaranaysaa wasiirka arrimaha dibadda arrintii xuduudda la furo waa la ballan qaaday ra'iisul wasaaruhu ballan qaaday wasiirka arrimaha dibadda waa ballan qaaday waxaan filayaa imanka inay ku jirto magaranaysaa habkii processkii maraysa ay ku jirta laakiin ballantaa waa la qaaday